shir ballaaran oo ay si weyn u soo agaasimtay jabhadda ONLF ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. shirkani ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ruux oo shacab ah oo Soomaaliyeed kuwaas oo ku dhaqan magaalada Addis Ababa iyo nawaaxigeeda. dadweynaha shirkaasi ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa odayaal, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaa kaloo shirkaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka mid ah maamulka magaalada Addis Ababa oo horkacayay duqa magaalada Addis Ababa Atootakale Umma. shirkani ayaa waxaa kale oo ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah jabhadda ONLF oo horkacayay xogayaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeyniya Halgame Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey iyo madaxa xafiiska diblomaasiyadda iyo xiriirka heer federaal Halgame Xasan Macalin. shirkani ayaa waxaa si weyn looga hadlay xuquuqda Soomaalida ay ku leedahay guud ahaan Itoobiya, waxaana diiradda lagu saaray in Soomaalidu ay helaan xuquuq dhammaystiran hadday noqoto magaalada Addis Ababa iyo hadday noqoto xuquuqda heer federaal Soomaalida kaga maqan. waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo aad u xeel dheer ka jeediyay shirka xogayaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeyniya mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, isagoo carabka ku adkeeyay inaysan ka tanaasulayn raadinta xuquuqda Soomaalida kaga maqan Itoobiya. waxaa kale oo ka hadlay maayirka magaalada Addis Ababa Atootakale Umma, waxa uu sheegay in Soomaalidu ay xaq u leedahay inay helaan xuquuqdooda oo dhammaystiran dhan walba ha ahaatee. waxa uu sheegay inay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqdooda. dhawaan ayay ahayd markii magaalada Addis Ababa lagu qaybsaday guryo kumanaan ah oo ay Soomaalidu xataa wax laga siinin. shirkani ayaa waxaa lagaga hadlay in Soomaalidu ay helaan shatiyada ganacsiga, guriyeynta iyo arrimaha xuquuqda ee kaga maqan dalka Itoobiya. waxaa dhankiisa ka hadlay isaguna Halgame Xasan Macalin oo ah madaxa xafiiska diblomaasiyadda heer federaal, isagoona ku nuuxnuuxsaday inay Soomaalidu xuquuq badan ay kaga maqan tahay dalka Itoobiya, sidaas daraadeedna loo baahan yahay in xuquuqda heer federaal ee Soomaalida ka maqan ay helaan. shirkani ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay odayaal, waxgarad iyo dhalinyaro kuwaasi oo dhammaantood ku nuuxnuuxsaday in xilligani loo baahan yahay in Soomaalidu si madaysan ay xuquuqdooda uga raadsadaan Itoobiya.